والله ولا ليجو إدلية ومحن كده فيديو وقت اللي قدوا بي إن ما يرير بيجا سجاري إن ما ذي رامر كأركان بياعين إن ما ذي رابع ريدي حتى الدرع عن حدنا ويجود اللاعين إن نجوري أنا كصوب حدا درع بيقول صو عرتي ولا يحدي maalmihii la soo dhaafay waxaa si weyn u qabsaday barkulanka baraha bulshadu ay ku xidhiidho dhacdo ugub ku ah gayga Soomaalidu digto taasi oo ah muuqaalo laga duubay gabadh yar oo falfool xun ay u geysteen koox dhalinyar ah taas oo inta ay dileen isla markaasina ay muuqaal ka duubeen kuna faafiyeen baraha ay bulshadu ku xidhiidho Yaasmiin Maxamed Dhuux oo ah gabadha yar ee dhibta loo geystay oo in muddo ah koomo ugu jirtay dhibaatadaasi soo gaadhay oo ku nool magaalada Hargeysa ayaanu ku booqanay hoyga ay kaga nooshahay magaalada Hargeysa waxaana ugu horeynba Yaasmiin ay nooga warbixisay sidii ay wax u dhaceen iyo dhibaatada loo geystay waxay u dhaceen in aan saaxiibnahay baan israacinay barnaamij dalxiis baan wada aadeynay kadib waxay igu tiri inan baa ku soo mareysay soo raac kadib taxigii dhaweeyaha in saaran baa soo maray waan raacay suuqa markaan mareey baan qaraacay aan ku yiri taxigii waan soo raacay kumee waxay igu tiri inan baa sii qaado waan ka horeeyaa sidii baan ku tagay buurta kala jeexan meel xagga ka xigto aan markaa ku balansanayna tagno ayaan tagay saamarkan gaadhiga ugu dagayna nambarkii waa laygu bilaabay qoriba xagga dama layga dhuftay basbaasna waa laygu shubay goobta maxaa ka soo qabanaysaa inaad ka doonteen marka hore sawiraan iyo fiidiyowyo TikTok iyo inaan waxa soo dubano ayaanu tagnay marka dhalinyartan falkan geysatay dhalinyar taag baa waxa anu ila socday inaan aqoon mas'uul ahaydeen marka hore israacayeen ma inanta anigu aan garanayay igu soo dartay ma garanayay inankan iyo inantan ma garanay kuwa idilayna ma garanay maxaa dhacay markii ay goobta tageen ee gaariga ka soo degteen gaariga markaan soo uga degeen oo daaqadii ba xidhan ayuu ninku iga jaray qori xagga dama madaxaan ka dawaqay basbaas bay inana igu shubtay meesha taagnay bacdeen maxaa dhacay bacdeen waxa dhacay in kale dhigoo la dilo ninkuna caloosha uu iga laado ama tago kadib markii la jilciyo kadibna video baa laga duubay sababta lagu dilay adigu ma garanaysid ma garanay markii dambe ma ogaatay markii dambe waan ogaaday maxaa lagu macneeyay waxaan ku ogaaday iyadoo inaan leedahay u duub shiina culeeha arkay u duub ayaan anigu dareemay marka ujeedadu waxay noqotay hablahan dilayay inan kamid ah ayaan ascaan lagu dilay waa inan istileen markaas darteedu ma inantii aan isku qabiilnahay un bay dilaysay marka inantaa hore ee laascaanood waxa weeyaan falkan ku geysatay inantaas laascaanood falkan ku geysatay anagu kale ehel waan nahay oo magac guud baan wadaagnaa laakiin ehel isku sii dhowna ma nihin mana aqaano anigu kadib maxaa dhacay markii ay ku dileen ee ku geysteen waxa ay ku geysanayeen maxaa markii dambe yaa ka soo gaaray sidaas oo xidhay markii dambe wallahi wala liigo idilaya maxaan ku dhaday fiidiyowga wata laga duubay malaha wala soo dhigay inama yaryar baa iga soo gaadhay inamadii raamarka arkaan bayaaceen inamadii raabe riiday xataa dirac aan xidhnaa way igu dilaaciyeen inan guri ana ka soo baxday dirac bay gula soo cartay oo lay xidhay kadib lambarkii xaafadeedan soo qaraacay markaan saasir lambarkii la hadal baan kooma galay way inteed ku jirtay koomada waxaan galay koomada adigu ilaa waxay ahayd maqribkii meelaha maqribkii bay ahayd waxaan ka baxay ilaa 12 habeenimo markaas sidee isu hesheen ehelkii iyo familygii sidee hadii aad koomada gashay xaaladaas ay dhacday xaaladaas markay dhacday waxaan isku helnay inamadii aniga lambarkii laga qoray way qabteen xaafadeedu xataa telefoonka way qabteen kadib inamadii yaraa iyo inantii igu qabatay marada ayaa qaraacay oo u sheegay si wuxuu dhaceen way talaabo maxaa qaadeen oo ku saabsan arintan iyo u gudbiseen laamaha amniga ma u gudbiseen walaal talaabo waa la qaaday oo dawladdu ay ku tala jirtaa baaritaan badanna waa la hayaa wali se lama helin waana ku rajay weynahay in la soo qabto sharciga la horkeeno Cabdiqani Xuseen Abukar Cabdiqani Baylood Sahan TV Hargeysa